بسم الله الرحمن الرحيم maxaa ka jira in sirdoonka Israa'iil ay ka dhex adeeganayaan qaaradda Afrika waliba wadamo Soomaaliya daris ay la tahay dhawaan wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa tagay magaalada Addis Ababa halkaasi oo kulamo kula soo yeeshay ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo dhigiisa dalkaasi Itoobiya Gideon Saar wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil waxa uu sheegay in haatan Israa'iil ay u soo jeesan doonto qaaradda Afrika wasi hadalka u dhigay isagoo sheegay inuu jiro xiriir weyn oo u dhaxeeya Itoobiya iyo wadamada kale ee gobolka oo Israa'iil uu sheegay inay leeyihiin xiriir aad qoto dheer laakiin saacadihii la soo dhaafay waxa soo baxday xog xasaasi ah oo la xiriirta sida sirdoonka Israa'iil iyagoo qaabab kala duwan adeegsanaya ay u dhaxgaleen nidaamyada dawladaha Afrika qaarkood waxaana leeyahay ilaa in ka badan 30 wadan ayay Afrika ku yaal ayay Israa'iil ka dhex adeeganaysaa arrinta waxa uga sii daraya qaar ka mid ah shaqooyinkaasi waxa wada hay'adaha samafal sida la sheegay oo Israa'iil ka socda iyo kuwa tababar sameeya laakiin hawlas dhanka sirdoonka ay arrintaasi ku gadaaman Maxamed Cadi ayaa soo akhriyay macluumaadka arrimaha soo baxay saacadihii la soo dhaafay ee la xiriira Maxamed bal hadda xogtan la yaab kale inooga waran waxaa si weyn qaaradda Afrika ugu dhaxmilan oo aynu warbaahintan waxba ka ogeyn diblomaasiyiinta rasmiga ay waxba ka ogeyn Israa'iil inay dhisatay shabakad basaasiin ah oo saameyn weyn leh oo adeegsada nidaamyo muuqda iyo kuwa qarsoon oo ay ka dambayso hay'adda sirta Israa'iil ee Mossad la yiraahdo iyo hay'ado kale oo magacyo kale leh oo isla hay'adaasi ay leedahay kuwaasoo dhex gala dadka rayidka ah awoodaha nugul isticmaala teknolojiya casri ah oo wax lagu basaaso isticmaala oo nidaamka siyaasadda iyo nidaamka Afrika ee xagga ammaanka oo dhanna ku dhexmilan waxa ayna ballan qaadaan inay gargaar xagga horumarka iyo xagga beeraha iyo xagga ammaanka inay dadka ku tababarayaan saate Israa'iil ayaa waxa ay dhiganaysaa ukumo basaasiin aan si loo ogaado aynan jiri karin oo dhex galaya arrimaha gudaha ee wadamadaasi ay ka dhex adeeganayaan iyo hay'adahooda muhiimka ah si ay u nugleyso meelaha istiraatiijiga ah ee muhiimka ah ee wadankaasi lafdhabar ku ah laga soo bilaabo wadanka Uganda oo lagu keeno Ethiopia xagga bariga lagu geeyo Nigeria ilaa Koonfur Afrika oo xagga galbeedka iyo koonfurta warbixinadu waxa ay tilmaamayaan in ay soo baxayaan howlgallo badan oo qarsoodi ah oo doqon magarata ah oo Israa'iil ku leedahay inay dadka maxalliga xataa tababaranayso ayadoo adeegsanaysa nidaam dabagal oo casri ah iyo agab casri ah agabkani ayaa lagu dhex qarinayaa hay'ado badan oo samafal ka shaqeeya oo teknolojiya casri isticmaalaya oo lagu xiriirinayo inay si toos ah iyo si dadbanba ciidanka Israa'iil ugu xiran yihiin waxaana muuqata baa leeyahay in la iska dhigayo samafalayaal laakiin waxaa ku qarsoon baa leeyahay ugaarsi dhaqaale iyo ku talagal la adeegsanayo wajiye fara badan ayadoo lagu gabanayo horumar waxaa meesha ka socda basaasnimo qoto dheer iyo macluumaad ururin waa gartay waxaad marka arrintan ma arrin cusub ah mise waa arrin soo jirtay goormay soo xoogaysatay Israa'iil markii ay la kulantay xaaladii weerarkii ururka Xamaas ay Oktoobar 7 2023 qaaday iyo in dagaalka marinka Gaza ka dhan uu dardargalay Israa'iil waxay ku dadaalaysay in ay howlaha ay Afrika ka wado ay dardar geliso waxa ay garwaaqsatay in si dhaqso loogu baahan yahay sida lagu xaqiiqsan lahaa taageero caalami ah Israa'iil loo fidiyo gaar ahaan gobolkan Afrika halkaas oo ay ku nool yihiin baa leeyahay wadamo fara badan ay jiraan oo u garaaba dadka Falastiiniyiinta qadiyadooda xiriir uu ka dhaxeeyo gumaysi iyo kuleelkiisa soo arkay
afrika waxa ay ka mid tahay xulafada ugu waaweyn ee falastiiniyiinta iyo xataa PLO iyo dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ee kale waxa ayna Israa'iil u noqotay mudnaanta koowaad ee xagga istiraatiijiyadeeda si ay galgal ugu yeelato gobolkan ma aha kaliya inay military ahaan u dhaglayso iyo dhaqaale ahaan waxa ay rabtaa siyaasad ahaan inay xataa xukuumadaha dhex gasho si ay u bedesho taageerada dadka falastiiniyiinta loo hayo shirarka caalamiga ah sida qaramada midoobe ay sida weyn Afrika taageerada ugu muujiyaan. waa gartay marka inkastoo hadda aad ka hadashay sida ay u doonayso Israa'iil inay ka hortagto dadka sida weyn u taageeraya qadiyadda Falastiinta laakiin waxa leeyahay xiriir dheer baa jiray wadamada Afrika qaarkood Israa'iil la lahaayeen bal arintaasi inoo faahfaahiyo waxa laga ogyahay. Israa'iil muddo badan ayay lug ku lahayd Afrika wax cusubna ma aha ilaa 1950 ayay soo bilaabatay markii uu David Ben Gurion oo ra'iisul wasaaraha ka ahaa Israa'iil markaas ayuu maleegay qorshe istiraatiijiyadeed ee lagu dhisayo in uu xulufo aan carab ahayn uu ka samaysto wadamada qaar ee aanan xoogaal ku ahayn arrimaha caalamka ka jira gaar ahaan carabta. Afrika ayaa markaasi waxay ku jirtay xilli gobnadoon ah oo ay gumaysiga ka dhidhiyeysay iyo dowlad dhisid waxayna u nugleyd in saaxiib la isaga dhigo. Ben Gurion ayaa arkay qaaradda in ay u dheelitiri karto wadamada carabta ay kasoo horjeeda wadana ay u furi karto Israa'iil si ay saameynteeda caalamiga ah ay u ballaarato. wuxuuna bilaabay istiraatiijiyad lagu meelmarinayo howlaha Israa'iil ma lagu shaqeynayno kaliya diblomaasiyad muuqata sidoo kale waxa lagu shaqeynayay shaqooyin qarsoon oo sir ah waxaa loogu gabaadgelayay dadka xagga farsamada in laga caawinayo iskaashi laga yeelanayo kala bedelashada dhaqanka hase ahaatee waxaa ku hoos qarsanaa xog ururin iyo adeegyo sireed barnaamijyo xagga beeraha barnaamijyo xagga caafimaadka ayaa inta badan waxaa ka shaqeynayay shakhsiyaad laba door lahaa maalintii tababarayaal weeye habeenkiina waxa weeye basaasiin. Dr. Walid Abdihaay oo khabiir ku ah daraasaadka mustaqbalka iyo lafagurinta arrimaha sirta ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsanayaa in Israa'iil howlahan ay waday ay daraasad weyn ku samaysay lana soo jeediyay in tababar la siiyo dadka Afrikaanka ah Israa'iil gudaheeda ka shaqeysta si loogu adeegsado wadamadooda kadibna wadamadooda dib loogu celiyo oo ay u noqdaan kaabayaal sir ee u sii yaala wadanka ay rabaan inay xogta ka urursadaan. xirfadan ayaa muddo badan soo socotay isbedelo badan soo sameysay waxayna noqotay mid miriqsan oo doqon magarata oo haddii agtaada ka socotaa xoog weyn. waa gartay way marka laga tago waxyaalahaas hore hadda ma jira marka hawlo la aaminsan yahay in Israa'iil ay wada oo ku lamaasan macluumaad urursigan iyo xogahan dhanka sirdoonka ah. Israa'iil ayaa wada dadaalo lagu sheegay kuwa horumarineed oo Afrika ka wado ma aha inay yihiin kuwa bini aadamnimo loogu talagalay ee waxaa ku hoos qarsoon hadafyo istiraatiiji ah oo sireed waxa ay ku dhex jirtaa maxadyo waxayna adeegsataa maxadyo ay ka mid yihiin maxadka caalamiga ah ee maareynta Galilei waxay isticmaashaa hay'ada sanfala waxay isticmaashaa khabiiro Israa'iiliyiin oo tababaro hogaamiyaasha Afrika bari xukumi doona ma aha oo kaliya xagga dawladda sidoo kale xagga istiraatiijiyada ammaanka waxaa jira saraakiil fara badan
oo Israa'iil lagu soo tababaray oo koorsooyin ku soo qaatay oo ka soo qalin jabiyay barnaamijyo ay Israa'iil ka shaqeysay barnaamijyadan rasmiga ah waxa weeye kuwa aanan muuqan laakiin tusaale ahaan waxaa loo soo qaatay saamiin mid la yiraahdo oo yuhuudda qurba joogta ah ay ka soo ururiso dad samafalayaal oo mutadawiciina oo ka shaqeeya siday u taageeri lahaayeen hawlgalada Mossad ee ka wada caalamka intiisa kale dadkaasi waxaa laga yaabaa in dhalashooyin kala wataan oo aaday ka shakiyeyn hase ahaatee waxay u shaqeynayaan ciidanka sirta ee Mossad Afrika marka ay timaado dadka u shaqeynaya ciidanka sirta ee Mossad sida uu hore u sheegay sarkaal hore ugu shaqeyn jiray Mossad oo la yiraahdo Victor Ostrovsky in ay gacan ku siinayaan hay'ado badan sida oga taageeri lahaayeen xagga sirdoonka iyo macluumaad ururinta jabsashada teleefanada iyo dhageysigooda ayadoona cidna dareemin xataa xukuumadda ayna dareemin waa garta waa iska dhex adeeganaya way laakiin waxa leeyahay arrintu intaas waa ka sii qoto dheer tahay si looga hortago arrimahan mamnuucidda waxyaabaha Israa'iil ay soo saarta ama siyaasadooda looga hor yimaado ururo bulshada oo maxalliya ayaa la isticmaalaya baa leeyahay iyo xitaa macluumaadka dhanka shirkadda diyaaradaha ee Israa'iil baraka inoo faahfaahay sida loo adeegsado arrintaas marka xagga ammaanka timaado bulshooyinka ayaa la dhexgelayaa ururada bulshada rayidka ahaa meelaha ay joogaan dadka yuhuudda oo kale ayaa si fiican loo dhexgelayaa waxaana laga shaqeynayaa danaha Israa'iil waxaana si dhow loola soconayaa howlaha lagu taageerayo Falastiiniyiinta gaar ahaan in la mamnuuco oo la gadan waayo waxyaabaha laga soo saaray Israa'iil dhaqdhaqaaqaas ayay gaar ahaan daba socdaan wax dokumentiyaal oo rasmi ah oo lagu xiriirin karo ma jiraan howlahaasi socda inay lugta la gelayaan Mossad laakiin waxaa la leeyahay kama foga danaha Israa'iil oo indhaha laga qabsan maayo intaa waxaa dheer hay'ado waxaa jira xagga ganacsiga oo ay ka mid yihiin diyaaradda ay leedahay Israa'iil ee la yiraahdo oo loo isticmaalayo inay ciidamada sirta meelo badan kala geyso iyo qalabka ciidanka sirta ay u baahan yihiin la gudbiyo iyadoo laga dhigayo inay tahay diyaarad rayida oo dad rakaab caadi sida shirkadaha lugta ku leh tababarida Afrika waxa ay ka shaqeeyaan inay caawiyaan xagga booliiska iyo militariga oo ay tababaraan waxaadna moodaa in ay ka maqnayn in ammaanka Israa'iil ay ku xiriirsan tahay hadafyada loo goleeyahay waa gartay ma laga hadlay marka siyaabaha markay timaado mobilada la jabsada iyo habka arrintaas ay u dhacday oo sirdoonka Israa'iil ay u fuliyaan oo wadamadaasi muwaadiniintooda iyo hay'adaha kala duwan iyo xitaa nidaamyada sida loo galo teknolojiyada Israa'iil iyo shirkadaha teknolojiyada ka shaqeeya ayaa ayaga laftirkooda teknolojiya casri ah isticmaalaya oo digital ah oo ay geenayaan wadamadan Afrika sida waxay abuurayaan shirkado ilaaliya amniga kombiyuutarada waxay sidoo kale sameeyaan qalab lagu basaaso dadka kale iyo teleefanadooda waxaadna moodaa Afrika oo dhan inay ku ballaaranayaan waxaana muuqata in xukuumadaha ay raali ka yihiin ama ka aamusan yihiin laakiin howlahani waxaa muuqata in loogu talagalay xukuumadaha u isticmaalayaan dagaalka waxa lagu sheega ka dhanka argixisada inta badanna waxaa looga hortagaa mucaaradka oo lagu caburiyaa suxufiyiinta ayaa lagu dabagalaa oo lagu basaasaa waxaa kale oo lala shaqeeyaa xukuumadaha keligii talisayaasha ah si ay awoodooda u ballaarato sida laga soo xiganayo baaritaano badan oo la sameeyay waxa ay shirkadahan hay'adahan ay sameeyeen la yiraahdo forbidden stories iyo hay'adan xuquuqda aadanaha Amnesty International iyo dadka u shaqeeya dabagal lagu sameynayaa jooga wadamada sida Rwanda, Uganda, Togo, Koonfurta Afrika waxaadna moodaa in la bartilmaameedsanayo dadkaasi oo loo isticmaalayo
nidaam teleefanadooda iyo kombiyuutarada lagu jabsanayo Israa'iil uu sameeyey, dowladda Israa'iil ay samaysay. Shaqaalaha shirkadaha teknolojiyada laftirkooda ayaa waxay ahaayeen dad hore uga soo shaqeeyey qaybta sirdoonka Israa'iil laftirkeeda ee kombiyuutar jabsashada ee unit 8,200 yiraahdo. waxaa isdhexgalay baa leeyahay ganacsigii iyo howlgaladii sirta iyo militariga Israa'iil. wax u kala soocan ma jiraan, wadamada Afrikana si weyn ayay ugu dhex jirtaa. waa gartay inkastoo ay jirto doqomaqgarato hawlo ah oo laga wada qaarada, laakiin haddana waxay leeyahay dad baa dhiifoon oo arrintan ka qaylinaya oo cambaareynaya oo ka digaya. bal halkaas inoo faahfaahay. wiil uu awow u yahay Nelson Mandela, madaxweynihii hore ee waddanka Koonfur Afrika, la yiraahdo Jovel Mandela, ayaa digniin ku bixiyey in Israa'iil ay hurinayso xasilooni darro ayada oo keenaysa agab lagu basaaso dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha iyo suxufiyiinta iyo qalab lagu caawiyo wadamada ay joogaan kali taliyaasha si ay xukunkooda sii wataan. waxayna hubaysaa kooxo ayadoo ku gabanaysa gargaar bini'aadanimo. istiraatiijiyadaas laba carabaynta ama laba dhanlaynta waxaa lagu taageerayaa shakhsiyaad ama xukuumado si looga faa'iideysto dulduleelada ka jira mujtamacaasi. waxaana loo suuragelinayaa Israa'iil inay ku shaqaysato si doqomna garata ayadoo laga baaqsanayo in baaritaan weyn lagu sameeyo. joogitaankeedana waxaad moodaa inaan cidna ogeyn oo ay sidii maskii meel walba u dhexdisayso. khabiiro ay ka mid yihiin Maxamed Saalax oo agaasimo ka ah xarunta Afrika ee cilmi baarista iyo daraasaadka siyaasadda ayaa waxa uu ku doodayaa teknolojiyadan casriga ah Israa'iil ay samaysato ayaa lagu dhex galay qaabab fara badan oo caadi ka noqday wadamada qaar oo lagu jabsadaa. wadamada qaarna ma doonayaan in si rasmi ay u sheegaan inay xiriir Israa'iil la leeyihiin, laakiin agabkan ciidanka sirta iyo iskaashiga xagga ammaanka ayaa dhaba u xaayadaya inay Israa'iil dhidibada ku aasato wadamadaasi xukuumana ku urursato. wax si rasmi ah iyo xiriir la yeelayna ma jiro. mar hadday xukuumadaada soo dhex gasho ama xukuumadaha dhex gashana ciidanka sirta Israa'iil iyo agabkeeda wax arki kara ma jira. waxayna noqonaysaa waddankaasi mid siyaasadiisa ay nuglaato, isteerinka ayaga ay la wareegaan, cadaadis siyaasadeedna ay saaraan ciddii ay mar xiriir la sameeyaan. waa gartay sidaas ay tahay, laakiin waxaa la leeyahay shirkadaha ka howlgala Israa'iil ay leedahay qaaradda Afrika. maxay qabtaan shirkadahaas? hawshoodaas maxay tahay? qaar ka mid ah shirkadahaasi ka howlgalaya Afrika ayaa lagu andacoonayaa in ay ku takhasusaan amniga rayidka. shaqadoodana waxa ay u dhaxaysaa marna rayid baa loo shaqeynaya, marna waa xog ururin. Magal Security Systems shirkad la yiraahdo ayaa ugu caansan. Elbit Systems ayaa ugu caansan. waxaasoo dhan waxay leeyihiin qalab ay soo saaraan oo ah CCTVs iyo wax lamida. Black Cube ayaa ka mid ah oo midda ugu muhiimsan ah. kulligood waxa ay ka shaqeeyaan dhisidda xayndaabyada garoomada diyaaradaha iyo dhismayaasha dowladda. waxa ayna kireystaan ilaaliyaal gaar ah. waxayna u shaqeeyaan dadka hantida leh, isla markaasna waxay ku hoolan yihiin inay xog urursadaan. shirkadahani ayaa ku dhex jira kaabayaasha istiraatiijiga Israa'iil, waana xog gacan dheer oo xog badan ururisa. Mogal gaar ahaan waxay gacan ka geysataa naqshadaynta darbigii lagu wareejiyey marinka Gaza. Afrika marka ay joogtana teknolojiyad noocaas oo kale ayay isticmaashaa lagu ilaaliyo goobaha saliidda laga soo saaro, goobaha macdanta laga qoro, madaxtooyooyinka wadamada qaar. waxaana moodaa in aad ay siyaasiyiinta maxalliga u aaminsan yihiin. hase ahaatee siriqdeeda ayaa meel walba u daadsan iyo gacan dheer bay leedahay.
black cube-na waxay ka mid tahay baa leeyahay sideeda waxa uu shaqeeyo leeyahay dad hore uga tirsanaan jiray ciidanka sirta ee rasmiga ah ee Mossad waxa ayna ururisaa ay iska dhigtaa hay'ad sirdoon oo madax bannaan waxayna si dhow ula shaqeysaa hay'adaha diblomaasiyadda Israa'iil iyo hadafyada diblomaasiyadda Israa'iil ayay si salaxdaa shirkadahan oo dhan waxay ka shaqeeyaan Afrika waxayna iska dhigaan la taliyayaal ololayaal iyo ganacsato hase ahaatee wadamada ay ka mid yihiin Ghana, Chad iyo Suudaan waxay xaqiiqsadaan in adeegyadooda loo bedelo saameyn siyaasadeed oo muddada dheer ah Israa'iil marka howlaha ay Afrika ka wado doqon maqiratada ama sahlana waa gartay anoo gabagabada ku dhow marka dhanka diblomaasiyadda marka arrintan laftigeeda maxay macnaha u sameynaysaa ammaanka iyo xog ururinta iskaashiga ay la gelayso wadamada Afrika Israa'iil ma aha mid xagga farsamada ah waxa ay la xiriirtaa xagga diblomaasiyadda sida uu sheegay Dr. Ayman Al-Barsane oo ka tirsan jaamacadda Jordan Israa'iil waxay isticmaashaa in xiriiradan ay saameyn ku yeelato xataa codbixinada markay doorashooyinka dhacaan ee hay'adaha caalamiga ah Israa'iil waxa ay xiriir diblomaasiyad la leedahay in ka badan 33 dal oo Afrikaan ah waxaana sidoo kale la sheegayaa in ay raadinayso inay xiriiro dadban la yeelato Afrika inteeda kale iska caabinta Falastiiniyiinta iyo dadka iska caabinta sideedaba taageera waxa ay ku samaysaa dabagal joogta koonfur Afrika gaar ahaan waxaa degan jaaliyad yuhuuda oo wadankaasi muddo badan ku noolaa marka laga gudbo iskaashiga xagga ammaanka ee Israa'iil ee la leedahay koonfur Afrika haddana koonfur Afrika waxay ka mid tahay wadamada sida weyn looga soo horjeedo siyaasadda Israa'iil ee ku wajahan marinka Gaza oo 2023 colaadan bilaabatay koonfur Afrika ay ahayd cidda maxkamadda dambiyada maxkamadda cadaaladda caalamiga ah geysay dacwad ah inay xasuuq Israa'iil ka geysanayso marinka Gaza araahda dadweynaha ee wadanka koonfur Afrika ayaa waxa uu leeyahay taariikh gobonimo doon iyo in laga dhiidiyo gumaysiga muddo dheer waxaadna moodaa in ay dadka koonfur Afrika u heelan yihiin welina sii wadaan in ay ka shaqeeyaan sidii loo taageeri lahaa Falastiiniyiinta laakiin Israa'iil waxay ka shaqeynaysaa in ururada bulshada rayidka iyo dhaqaaqyada yararka ah ee weli Falastiin qadiyadeeda ku dhex jira ee nidaamka cadaaladda iyo gumaysi diidka iyo cunsuriyadda ah in ayaga lafigooda dhex gasho ay ka dhex adeegato waay waxa marka anoo soo gabagabeynayna marka oo barnaamijka qaybta ugu dambaysa ku jirnaa maxaa laga fahmi karaa marka xogtan hadda soo baxday mise jira baraarug ku saabsan dadka Afrikaanka iyo hogaamiyaashooda ama madaxdooda ama dawladahooda arrintan ay ka qabaan mise leeyihiin ku dhac ay arrintan kaga hortagi karaan Afrika oo ay khabiirada inta badan ku tilmaamaan inay tahay wadan dawladnimadiisa iyo nidaamkiisa shaqada ay tahay mid aanan xoog badnayn Israa'iil waxaad moodaa inay dhidabada ku dhex aabsanayso oo ay isticmaalayso nidaamyo aad u miriqsan iyada oo isdhex gelinaysa horumarin gargaar tababar military basaasnimo diblomaasiyad iyo istiraatiijiyooyin kale halka sida rasmiga ah ay iska dhigayso in ay wanaag u wado wadamadaasi waxay sidoo kale wadataa hawl qarsoodi ah iyo iskaashi xagga ciidamada sirta waxayna rabtaa inay saameyn ku yeelato fikirka dadka Afrikaanka ah ee la xiriira taageeridda dadka Falastiiniyiinta iyo qadiyadooda waxaa jira
dhaqan aad u fog oo muddo dheer soo jiray ee ka dhexeeya dadka Afrika iyo Falastiiniyiinta welina waxaad moodaa qaaradda oo dhan inay weli u heelan yihiin inay Falastiiniyiinta taageeraan, laakiin Israa'iil waxay rabtaa cid allaale iyo ciddii Falastiiniyiinta taageerta in ay ayada lafirkeeda ay yeelato dad ay ayadana taageera. waxaana muuqata dagaalada qarsoon iyo saameynta ay ciidanka sirtu wadaan iyo inay dhex gasho qaaradda Afrika iyadoo halbeegsanaysa oo haldooranaysa meelaha saameynta leh. waxaad moodaa ugu dambeyn guusheeda waxay ku xirnaan doontaa xiriirada ay la samayso dowladaha iyo siday awood ugu yeelato in ay ka soo kabato niyadda dadka Afrikaanka ah ee u janjeerta xurriyadda iyo la dagaalanka gumaysiga iyo caburintiisa. waa jirtay maxamed, aad baad u mahadsan tahay. daawadayaashuna way mahadsan yihiin. intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal barnaamijka. si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horey aadan ugu xirnayn, hadda kusoo biir. waana mahadsantihiin mar kale. nabadgelyo.